waxaa go'ay guud ahaan wadada xiriirisa Wallaweyn iyo Muqdisho kadib markii muddo bil ah ay soo buuxraafinayeen hareeraha wadadan biyaha fatahaad ee webiga Shabeelle gabaarida ayaa kala wareeg gala dadka iyo xoolaha waxaa lagu mootiyaa xambaar ayadoo ay jirto halis badan oo biyahan ay sababi karaan wadadan waxay isku xirtaa gobolada Bay, Bakool, Banaadir iyo qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose gabaari tiro badan ayaa ku xiriiran wadada kuwaasi oo sida raashin tiro badan darawalada gaadiidka iyo shacabka go'doonka ku galay wadadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dhibaatada ka taagan wadada waxayna madaxda dalka ka codsadeen in si degdeg ah wadada loo dhiso maadaama ay dhibaato badan ka dhalan karto haddii ay maalmo sidan sii ahaato. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga Shariif Sheekh Muhammad Sheekh Xasan waxa maanta xawasho aan ka muujinaynaa degmada Wallaweyn ilaa iyo gobolada inta u dhaxayso Baydhabo ilaa iyo meesha la yiraahdo degmada Wallaweyn ilaa iyo Afgooye wadada gaadiidka oo maraya inay ku go'an tahay meel la marana gaadiidka oo la yahay kii xamuulka iyo walaa kii yaryara iyo walaa wixii mootooyin ah dadkii in xawasho aad ay muujinayaan oo dadkii biyaha rafaadka ay raashinkii oo gobolada loo waday Baydhabo ilaa iyo Dalow iyo Beled Xaawo inta u dhaxaysaba in uu gaadiidku uu go'an yahay wadadiina ay go'day gaadiidkiina uu naga taagan yahay xawasho aan ka rabno meeshaan aan joogno waxa la yiraahdaa Buulo Xaansho iyo meesha u dhaxaydo Warmaxan waxay ka tirsan tahay degmada Wallaweyn waxaan xawasho ka muujinaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu wax uu nooga qabto si degdeg ah in gobolka uu wax u soo gaarsiiyo degmada Wallaweyn ilaa iyo inta u dhaxayso Warmaxan gaadiid ma jiriyo moota ugu yar laba lugoole xataa ma dhaafi karto waxaan xawasho waxaan madaxweynaha u diraynaa Dhambaala in uu si degdeg ah u soo gaaro oo dadkiisa wax u qabto oo dalka wax u qabto Cabdicasiis Maxamed Lafta Garan iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in si degdeg ay ku soo gaaraan dadkan ilaa iyo shacabka ilaa iyo Soomaali weyn in wixii ay qaban kartay ay qabato in gaadiidkii aan xal aan loo haynin shacabka Soomaaliyeedna xal loo haynin maanta ummadda Soomaaliyeed muslimiinta waxa ka codsanaynaa gargaar degdeg inaan loo keeno maanta na haysato Ilaahay ha naga qaado anaga dhibkaas aan nahay ka waran jidka hadda xaaladda see ku soo martay adiga xaaladdan maanta si qaab daran nin baa isoo xambaari $1 buu igu soo xambaari dhibaatadaas jidkan ka jirto anaga qudaariyana qudaartayna 4 maalmood intay iska taalaan marka meeqay kugu qaadatay inaad wadada hadda soo gudubtid annaga qofkiiba $1 ibara lagu gudbiyaa nin baba dusha ku saaray si kale lagu gudbiyo marka maxaa ka codsanaysaa ummadda Soomaaliyeed ku maqlaysa dawladda Soomaaliyeed muslimiinta ina gargaar jidkan loo keeno jidkan la sameeyo Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anagoo gaadiidka degmada Wallaweyn waxaan cawasho weyn ka qabnaa degmada Wallaweyn iyo Afgooye gaadiidka isku xiray waa ay naga go'een sabab yeeshay awgeed biyo soo fatahaaday buundooyinka inta badan waa ay naga go'een waxaan codsanaynaa in wax noola qabto wadada ilaa iyo adi maanta ay bilaabatay laakiin muddo dhibaato badan aan ku mareen inkastoo aan mar walba gaadiidka godada badan aan ku ridayn xoolaha sida caanaha iyo ariga in dhabarka lagu qaato ariga caanahan in la xamaalo loorarkii anaga aan wadnan in aan loor madax aan ku qaadno waxaan codsanaynaa in wadadan si degdeg ah nagala dhiso sababtoo ah degmadan hunguri mareenkana qofka hadii laga qabto dhibaato ay leedahay shacab badan ku nool Baydhabo ilaa ay xamray isku xirtaa shacab badan ku nool degmada in loo dhisan codsanaynaa Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan joognaa wadada isku xirta Wallaweyn iyo Afgooye waaye waa meel u dhow Buulo Xaashi iyo Warmaxan meel u dhaxaysa xalay ayaa wadadii biyihii roobka daadka ahaa ee ka yimid kaliya shiinaha gooyeen wadada maanta waxay noqotay kala wareeg oo dad badan ayaa halkan ku xayiran dad rabay inay Muqdisho danaystaan iyo dad badan oo Muqdisho ka yimid ayaa waxa arkaysaa macnaa in wadadii meel la mar laayahay oo dib badan ka taagan yahay marka waxaan codsanaynaa dhammaan hay'adaha caalamka iyo maamulada Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka inay ka soo gaaraan ummadan wadada ka go'day wadadan wada muhiim ah una ah macnaha socodka dhammaan gobolada dalka gobolada dalka oo dhan wadada isku xiraysa ay tahay waxaan rajaynaynaa in si waqtiga badan lala soo gaari doono goorma go'da wadadan baloogaay wadadan muddo ugu yaraan bil ayaa biyo ku socday lamana filin laakiin xalay ayaa si kadis ah laamiga dhammaan u wada go'ayba iyadoon la filanaynin saaka markii lagu soo dheentay safka soo wada galeena meel mara la waayay
ummaddan Soomaaliyeed ilaahay rabaanado ka qaadi kariya biyuhuna waa soo bato waayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah meel alla dalka iyo dibadda meeshii joogaan inay si nabadgelyo ay wax ugu qabtaan jidkan goorma go'ay wuxuu go'an yahay aan u malayahaa shalay khamiistii inta kibaayadu go'an yahay hadda sidee lagu kala gudbaya marka sidee lagu kala gudbaa rafaada lagu kala gudbaa dusha la saaro waayay caaniga dusha la saaro waayay loorka dusha la saaro dadka waa la xamaalo waaya badar la xamaalo waaya marka waxaan idinka codsanaynaa haddii aad tihiin warbaahinta haddii aad tihiin odayaal dhaqameedka haddii aad tihiin ummadda Soomaaliyeed nin walboona dhegaysanaya ama na maqlaaya waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah looga qabto gaadiidka halkii waddo halbuula isku baya Soomaaliyeed isku xidhay aan ka codsanaynaa Soomaaliyeed kulligood waxaan u sheegaynaa in wadadii oo isku xiraysay gobolada inay wada go'een waxaan u sheegaynaa inay u soo gurmadaan wadadaaneti awalan wadada wallahi xalay go'day xalay 4 saac haweenimo hadeertaan waa kana annagu macnaa alaabteena xataa xaggee taala bira annaga inta u soo gudubsana male rafaada ku jirnaa wallahi wax waliba baasto iyo burkii wixii anaga aan ku dukaamaysan leena cun leena xataa xaggee naga wada jiraan waa degmada Wallaweyn maanta biloowatay wadadan ay go'do biyaha saa loo kala gudbiyaa dadka rafaad ku nool degmada Wallaweyn dadku ku nool maanta raashinkii arigii aanay weedan saa naqlasaana loo kala maray wadadii go'do naqatay dadweynaha degmada Wallaweyn go'doonka ku jira maanta waxa rabaa shacabka degmada Wallaweyn wax noo qabtaan maanta koowe dadka waa la qaadaa lacag lagu qaadaa waan gacanta la qabana qofka aad loo xambaara lagu gudbi kara biyana wada leedin hoolaan waa la xambaara dad lacag ku qaad ana amala lagu qaado waa kuwan dadka amalada saana wax u qaadanayaan baasida madaxa lagu qaadanaya meel la kala mar malaha kuleelka ilaa noo gargaar dhibaatada kaliya kuma koobna go'ida wadada balse waxaa kaloo jira dad tiro badan oo guryahooda ay ka barakiciyeen biyaha fatahaada webiga kuwaasi oo deegaansaday hareeraha wadada waxayna halis ugu jiraan in mar kale biyuhu ay soo gaaraan ma jirto ilaa iyo hadda wax gargaar ah oo lala soo gaaray mahad axmed cali mahad sheekaya telefishinka RTN degmada Wallaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.